بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب تقاليقة وإن سلامية ولكن عيد الشريف شارع المخزومي رنهانتي ما أنت وحن أركي مقال آدي رنتي إمور جليي رنهانتي آدي أوجن حي رنتي سيداد كودا مقشين ورباهين ذا عالم كإسدي باهين يعني يكون جذهبة وحا آد مقشين إن أي حلوانة دا ليرادو إلهان عمر أي كورستي نيكي لقوته مجري للها وwaxa ka dhaxeeya xiriir jacayl ah run ahaantii gabadhan ilhaan waa inta badan Soomaalidu waa gabar ay aad ay qadarin iyo qiimo weyn ay u han jireen markii la eego xagga siyaasadda ay heerka ay ka gaartay dhinaca markii la joogo wadanka Mareykanka Soomaali badan ayaa waxay aad ugu farxeen markii ay xildhibaanad ka noqotay dalkaasi Mareykanka oo ay runtii islahaayeen waa gabar runtii buuxin karta kaalinta Soomaalinimo ayna ku weyn tahay Soomaalinimada dad badan ayaa waxay ku jeclaadeen in ay Soomaalinimada ay ku weyn tahay darteeda ay taageero badan ugu fidiyeen maadaama ay tahay gabar Soomaaliyeed hadaba Ilhaan Cumar Ilhaan Cumar hadaba ma tahay qof wixii laga filayay ka soo baxday ay Soomaalidu ka filayeen mise waxay noqotay run ahaantii waxa fajac iyo la yaab ku noqotay ummadda Soomaaliyeed gabadhan Soomaaliyeed ah ee dadka Soomaaliyeed ay ku jeclaadeen Soomaalinimada in ay runtii ku dhaqaaqday fal aad looga naxo ay Soomaali badanna ka caroodaan hadaba Ilhaan Cumar nolosheedii hore ee ay la soo wadaagtay saygeedii hore in nolosha cusub ee hadda ay sameysatay farqiga u dhaxeeya Soomaalida ayaa runtii ka jawaabi doonta run ahaantii sida hadda sawirkan meesha idin kaga muuqda Ilhaan Cumar iyo saygeedii iyo sida caruur ay wada dhaleen ayaa halkan waxa ad ka aragtaan in ay ka muuqato wajigoodii farxad iyo reyn iyo nolol runtii tii aad u sareysay ay ahayd Ilhaan Cumar ninkeedii ma waxay ka weeday farxad ma waxay ka weeday jacayl ma waxay ka weeday wixii Soomaalinimo iyo maxaan ku dhahay dhaqan Soomaaliyeed lagu lahaa ay marka ninkeeda ay iskaga ceeriday ama iskaga maartay furtay runtii Ilhaan Cumar waxaan uu ka filayay iyo waxay ummadda Soomaaliyeed ka filayeen marnaba kama soo bixin Ilhaan Cumar waxaan ku haminayay in ay Soomaali wax weyn u qaban doonto Soomaalinimadan ay ku weyn tahay laakiin maanta waxay cadaatay Ilhaan inaanay ahayn gabar Soomaaliyeed oo Soomaalinimada ku weyn tahay laakiin magaca Soomaaliya iyo diirka Soomaaliya oo kaliya ay wadato laakiin qalbiga ay ka tahay qof kale taasina waxa cadeen ku ah markii ay saygeedii marna walaalkeedii ah marna dhiigeedii ah isku dhaqan muslim isla yihiin ay intay iska eriday ay nin cadaana guursatay oo Mareykan ah haddaba su'aasha meesha taala waxay tahay oo Soomaalidana u baahan inay su'aashaasi ka jawaabaan ma ka heli doontaa farxadii ay ninkeedii ku haysatay ninkan cusub ee hadda ay guursatay waayo waxaanu ognahay qof kasta oo Soomaaliyeed waxa farxad u ah markii uu la nool yahay qof asaga dhiigiisi ah ama uu dad ahaan iyo diin ahaanba ay isku mid yihiin haddaba ninkan ay guursatay ee ah ninkan cadaanka ah ee Ilhaan guursatay runtii ma ka heli doontaa farxadan oo kale maanta nolosha iyo farxadan markaad reerkana u fiirsataan ka muuqata waxaad leedahay runtii dadkani adduunyo aakhire iyo adduunyo labadaba Ilaahay wuu dhameystiray waayo farxad adduunkani waxa lagu nool yahay gabigeeda nolosha adduunku waa wax yar oo kooban haddaad haysato farxad iyo nolol maadaama adduunkani uu yahay wax laga tagayo magac iyo sumcad kasto aad leedahay lacag kasto aad leedahay in ay tahay mid aad qabri ka galayso maanta ma u baabin lahayd ninkaagii caruurtaadii inaad kala fogaataan nin cadaana dartii si aad magac iyo sumcad kala aad u hesho maanta Ilhaan Cumar magac ba ku yar ma sumcad ba ku yar maxay ninkeedii uga carartay maxay caruurteedii iyo ninkeedii u kala fogeysay run ahaantii waa arin aad nasiib daro u ah haddaba Soomaaliyeed Ilhaan Cumar nolosha ay hadda ninka la wadaagayso waxa weeyaan waa ninkani waa nin cadaana waa nin aan maanta isku jinsi aanay ahayn waa nin maanta aanan u qalmin xitaa iyada sababtoo ah markaad u fiirsato ninkani iyo iyada markii loo fiiriyo maanta waxa qiimo badan iyada ninkeedii hore ee quruxda badnaa ee aad arkaysaan quruxdiisii iyo caruurta ay dhashay maanta quruxda ay leeyihiin ma sha Allah Ilaahay u daayay ee iska eriday runtii waa wax aad looga xumaado laakiin maanta wax kasta adduunyada waa laga filan karaa Ilhaan Cumar waxaanu ka haminaynay inay noo noqoto maamo Soomaaliyeed laakiin maanta waxaan ka xumahay markay ninkan xun ay guursatay ay maartay ay nolosheedii isugu dhiibtay ee caruurteedii ninkeedii kaga fogaatay in aanay u qalmin ba in la dhaho waa qof Soomaaliyeed haddaba Soomaaliyeed dumarka waxaan si khaas ah wala hadlayaa dumarkeena Soomaaliyeed
war dumaro markaad qurbaha tagtaan oo nimankiini Soomaaliyeed ee wadanka aad ka kaxaysateen ama wadanka aad iska la tagteen inaad maanta aad markaad qurbaha tagto nolosha xume waxba aanay tareenin ee qiyaaliga ah ee aan waxba aanan tareenin nolosha bini'aadankana aanan ku ahayn wax maanta lagu siisto qof bini'aadana walaalkaaga aad ku doorato inaad walaalihiina iska xorin inaad nimankiina iska xorin inaad saygiina aad ilaashataan nin cadaana oo gaala oo futu xaara oo aan waxba ku tareenin adduunyo aakhira ku seejinaya inaad maanta ninkaaga walaalkaaga ah ee muslimka ah ee quruxda badan aad xoorto aad ka tagto liajli nin xumo cadaana oo aan ku qalmin walaalkaaga aad ku nacdo runtii waxa aad iyo aad looga xumaaday weeyaan waxaan aad iyo aad ula talinayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee qurbaha iyo meel kasta jooga ha ilaawina nolosha waa tan aad kaga timid gurigaagii aad kaga timid weeyaan qof walbana ha ku xisaabtamo in mar walba waxa uu yahay uu ahaanayo ninkan cadaaka guursatay maanta wax qiimaadkiisa kama lihid waxa maanta ku haystaa inaad tahay qof aad iyo aad uga hooseeya ayada xageeda maanta sharaf baad ku haysataa ninkaaga Soomaaliyeed ee aad adigu jeceshahay ee aad jecelka markii hore isku guursateen sharaf iyo sumcad baad ku haysataa laakiin markaad nin cadaana guursato oo aan waxba ku ahayn oo agtaada wax liita ka ah aan waxba inaad tahay aanan ku aqoonin inaad maanta ninka aad jeceshahay ku bedelato intii waxa aad iyo aad looga xumaado oo waliba caruurtaadii aabahoodii ah oo maanta waxaad ku nacaysa aanan jirin oo ah nin maanta Soomaaliyeed oo quruxdaas leh islaamnimada ka muuqato wajigiisa ifayo salaada ka muuqato inaad ku darsato mid xumo wuxuu yahay aan la garanaynin ee wajigiisa ka muuqato naclada alle inaad ku bedelato walaalkaaga muslimka ah haddaba Soomaaliyeed waxaan adigu idin ka rabaa talooyin badan inaad gabadhaasi u soo jeedisaan ee ninkeedii iska bedeshay ee farxadan baabiisay ee caruurta quruxda badan maanta aabahoodii kala geysay waxaad kula tali lahaydeen idinka ayaa idin ka rabaa anigu runtii run ahaantii arintaasi waan ka ooyay waana ka murugoodi markaan arkay farxadan nolosha quruxda badan dawlad cadeynta ka wada muuqata iyo ninka xumeed wajigiisa aad u maleysid ee gafuurka taagaya ee maanta wuxuu yahay aan la garanaynin inaad nin Soomaaliyeed oo muslima ku bedelato runtii lahaanay kaamina filaynin laakiin Soomaalida ayay jawaabtaas u taalaa iyo waxay dhihilayd Ilaahay kugu dhaariyay labadan sabir ee labadoodii markaad qiimeysaan iyo sabirkani markaad isku qiimeysaan keeba qaadan lahayd Ilaahay baa kugu dhaariyay war Ilaahay baa idinku dhaariyay bal labadan sabir uu kala qiimeeya sabirka iminka gabadha ay la gashay ninkani iyo sabirka ninkan ay la gashay ninkeeda xalaasha aha ee muslimka ah walaalkeeda ah ay la gashay bal Ilaahay baa idinku dhaariyay idinku qiimeeya Soomaaliya qiimeynta idinka idin daayay waxaan anigu la dardaarmaya gabdhaha Soomaaliyeed oo adduunka wax laga tagay weeyaan wax uu taray male Ilaahay subhanahu wa ta'ala mataac nabiga cali salaam wuxuu ku sheegay inay tahay mataac wax yar oo kooban wax laga talaabsan nabiga cali salaam qiimo adduunyaha inaan la lahayn waxaad aragteen Aisha nabiga cali salaam markuu la noolaa nabiga cali salaam hal go uu xiran jiray dhexdo caloosh ku xiran jiray gaajo way ku qanacsanayeen dumarkii uu qabay hooyooyinkeena muslimiinta ahay wala maanta ee hooyooyinkeena ahay nabiga cali salaam ee xaasiskiisa ahaa way ku qanacsanayeen oo la farxad bay ku haysteen kuma kamay dooranin lacag kamay dooranin maartay laakiin waxay doorteen tan qiyaamo laakiin waxaan maanta aan ka xumahay in gabadha ilhaan runtii ay meesha anuga aan ka filayni meel ka hooseysay iskiisay runtii gabar meesha sare gaartay bay ahayd oo caalamka oo dhan la dagaalamay oo gaali muslimiin isugu tageen sharafta iyo karaamada ay sameysatay Soomaaliya ku heshay magac Soomaali bay ku heshay Soomaalida geysay laakiin maanta inay Soomaalida dhulka ku jiido inaan cadaan xun raacdo ee guursato runaantii aanu kama filaynin laakiin Soomaaliye qofka bini'aadamka waxa uu ka fisha qofka taageerada siineysaan oo jeclaanaysaan ka fiirsadaan idin dhihi lahaa aad iyo aad idin salaamaya saaxiibada qaaliga waxaan aad iyo aad uga xumahay gabadha walaasheeda ee maanta nolosheeda meel mugdi ah gelisay iftiin bay ka soo baxday meel mugdi bay isgeysay liajli yani maxaan ku dhahaye aad magac kale sii yeelatid magac baa u harsan Ilaahay idinku dhaariyay gaali muslim baa taqaana ilmaha saqiirada ayaa yaqaan oo gaali muslim bale oo maanta Arab iyo Afrikaan bale ayaa maanta Ilaahay magaceeda yaqaan magac kale u harsanaa bal ninkeedii oo intaas sano carruur ay soo wada dhashay ee saddex carruur soo wada intaas sano qabay ay magaca soo qaba heshay bal magac kale ay ninkeeda ay ka weedi iyo sharafta kale ninkeeda ay ka weedi bal idinku kala qiimeeya waxaan aad uga xumahay farxadda quruxda badan leh ee aad aragtaan iyo laafiyoodka ee wadada street la isla marayo si happy iyo farxad ku jirto la isla marayo oo maanta dhulka lagu xooray nolosha baleeg Ilaahay baan ku dhaariyay quruxdeeda ay maanta haysatay ay maanta ay ku bedelatay nolol aad iyo aad u falxun oo muruga leh bal ay qosolka kaliyeedu ka muuqda laakiin isaga gafuurku taagaya runtii aad iyo aad baan uga xumahay in gabadhaasi muslimada ay walaasheena
ay maanta meesha ay isdhigtay runtii ay tahay meel aad iyo aad u liidata Soomaaliya waxaan idinkaga dardaarmi lahaa idin sheegi lahaa gabdhihiina Soomaaliyeed waaniya aabi hooyo hablaha dhasheen waaniya hadii waan idinka maqlayaan in wiilasha Soomaaliyeed aanan maartay adduunyo looga tagin aan looga tagin magacay sumcad looga tagin maanta sharaf iyo sumcad waxa uu ah qof kasta oo muslim ah in uu walaalkiisa la noolaado walaalaha qaaliga ah aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin codsanayaa hadii aad yeeshaan barnaamijkan inaad share gareysaan subscribe iyo like na ku dhufataan aad iyo aad idin salaamaya ولكن عبد الشريف شاعر المخزومي ورنتي أدبن وقيرانيا رنتي أرنكاني من فيلين رنتي إن شاء الله تعالى وحن رجينيا هذه إيدا التكيد فرين تاني وقارتي ونقضون طوانو إيو حزوسين إيو تصالي إن شاء الله تعالى وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.